xamda yuusuf ibraahim oo loo yaqaana xamda qali iyo barwaqo maxamed xaashi oo loo garan og yahay barwaqo qalanjo oo ka mid ah fanaaniinta sida weyn fankooda uga soo dhex baxay magaalada Hargeysa ayaa muddo ka badan 2 bilood ku xidhan saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa. xadhigooda ayaana weli xukuumadda somalilan ka hadal. qaar ka mid ah ehelada iyo asxaabta labadaasi fanaan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xariga fanaaniintani xamda qali iyo barwaqo qalanjo. geesta kalena waxay cod dheer ku sheegeen in xukuumadda somalilan uu gadhudeyka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi ay cafis uga dalbayaan labadaasi hablood. halkan waxaan maanta shir ku jirnaa hablaha naga xidhan maxaan ku dhaday xamda qali iyo barwaqo qalanjo oo dhibaato sameeynin oo xamarka ay tageen mooyaan Soomaaliland dambiye ka geysan maxaan ku dhaday xamarna iyagu aan ugu horeynin dad badan oo ka horeeyay ay jiraan asay markay qaar maqayaan bas ay joogaan waxa weey iyagoo dambiga ay lagu qaaday aan lagu qaadin asaga maxaan ku dhaday dambi lagu qaaday hase ahaatee maxkamadda sharafta ay fasaxday oo maxaan ku dhaday xornimadoodii u fasaxday asoo iyagoo wax dambiye lagu waayo oo Soomaaliland aan ka gelin in maxaan ku dhaday sharaf leh oo qiimo leh oo qaayale iyo madaxweynaha dawladda sharafta ka codsanayna in loo soo daayo ayagoo oo maxaan ku dhaday aan saa ugu taagan daradeed. maanta waxaan halkan saxaafadeed ku qabanaynaa haddaan dhalinta Somaliland in labada hablood ee fanaaniinta ay xidhan ee xamda yuusuf iyo barwaqo qalanjo ay xorriyadoodii loo soo celiyo. bishii afraad 20keedii ay ahayd markii ay xamda yuusuf guriga ay ka degantay magaalada Hargeysa ay ka qabteen ciidanka CID Somaliland iyagoo markaa ku eedeynaya waxa tagtay xamar ama tigitaanka xamar uga dhigay kiis hase ahaatee waxay xidhan yihiin hadda muddo ku dhow 2 bilood. iyagu sharciga kama weyna sharciga way hoggaansan yihiin hadii wax dambiye iyo wax kiisa lagu helo laakiin waxa weeyaan muddo bil ah hadda waxay kiiskooda ku jiray maxkamadda gobolka ee magaalada Hargeysa. maxkamadda gobolku markay dacwadda dhageysatay hablaha wax kiisa mar hadii aanay ku haynin oo ay wax kiisa ku weyday way fasaxday iyadoo go'aan ka soo saartay in maxkamaddu ay u celiso xorriyadoodii. hase ahaatee xeerlaalinta ayaa waxay ka qaadatay raacfaan iyagoo hablaha xorriyadoodii loo celiyay mar haddaan qarnimada Somaliland ay wax u geysanin tagitaanka xamarna kiis cad loogu waayay inaanay wax aflagaada marna aanay Somaliland u geysan. maxkamadda gobolku way fasaxday kadib waxay qaateen xeerlaalintu raacfaankaas oo ay xeerlaalintu ka qaadatay. hase ahaatee hablahan xamar way tageen dad shacabka Somaliland shacab badan oo reer Somaliland way tageen fanaaniin iyaga la mid ah iyo qaar ka horeeyay way tageen hatta aan fanaaniin baa joogta. madaxdeena seen ognahay way la kulantaa Muqdisho way la kulmaa madaxda Soomaaliya calaamasaarkii maanta oo tala kismaayo dad madaxda Somaliland kamid ah ka qayb gashay. marka xamar tagitaankeeda maadaama aanay hablahan wax aflagaada u geysan marna aanay qarannimada Somaliland ka soo horjeedin anigu waxaan aaminsanahay xamar baa la tagay in aanay qarannimada Somaliland aanay waxba yeelahayn because inagu qarannimadeena waa muqadas. xamar hadii la tago iyo hadii gobolka kale la tagaba inaga teenu way ka go'an tahay calan la qaatay iyo xamar la tagay toona qarannimada Somaliland waxba uma dhimayso. waxaan ku dhahday waxaan ka codsanayaa dawladdeeda sharafta leh labada hablood ee dhalinyarada ee fanaaniinta xamda iyo barwaqo qalanjo maxaan ku dhahday iyadoon wax dambiyo ay Somaliland ka galeenaanay jirin maxaan ku dhahday wax aflagaadeena jirin xamar tagitaankeedana de kulay maxaan ku dhahday fanaaniin horena way tageen qaarna wali way ku maqan yihiin madaxda laftigeeda maxaan ku dhahday qaar baa taga wax dhiba maxaan ku dhahday hadii aanay Somaliland u geysanin waxaan ka codsanaynaa dawladdeeda sharafta leh inay xorriyadoodii u soo celiyaan. halkan waxaan ka salaamay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaan ka codsanayaa labada hablood ee xamda qali iyo barwaqo qalanjo inuu dib xorriyadoodii ugu soo celiyo. maxkamaddu way fasaxday rafcaan xeerlaalintu ku qaaday umba hadda ku dambeeyaan insha Allah waxaan ka codsanayaa inay xorriyadoodii celiyaan. haleegna uu ku xukuman yahay inta midna lama odhanin way xukumayn hablahan iyo way ku jirayaan iyo waa ka baxayaan waagii bariyaba wuxuu baan u taaganay inaanu iyaga ila leeyahay wala soo diinaya haddana lama soo diinayo. marka waxaan xukuumadda sharafta la ka codsanaynaa inay hablaha sida ugu dhaqsiyaa badan si sharaf leh ugu sii daayaan haddii kiis kale ama bas wax kale oo lagu hayo uu jirana la noo sheego la yiraahdo waxa jira. maxamed cabdi qalinle telefishinka caalamiga bulsho Hargeysa.